ka horreeyay waxaan ku sharaxnay innaga oo keenay chartska ku jira goobtan chartska ku jira marka la joogo home ee laba jeer kaliya siinay oo kan ku sharaxnay halka laga soo galina home bay ahayd markaasaad halkan ka dooranayso halkaas active noqonaysa kuwa halkaas active ka dooranayso okay laba jeer marka warqadu design ka doonto ayada halkan kan waa midabka smart art styles ayaad ku dooranayso marka kana waxa weeyaan qaabka kolbo ka dhigaysa ma isku wareegba okay aday ku tada marka sidaas samayso ayaa waxaad samayn karaysaa no waxaad soo dari kartaa qaar kale soo dari kartaa intaas muhiim ah ila qaabka lagu soo daro marka hore waa inaad add shape tagtaa add shape marka tagto waxaad leedahay after xagga hoos ku geeniya xagga sare ka daray xagga hoose ay ku daray okay laakiin before waa xagga hore ka daraya imka hadda halka laakiin jooga ba markaasuu xagga hoose below iyo above inta dhinaca dadka ka daray markaasad ku qoranayso qoraalkaaga markaad ku qoranayso waa inaad right click siisaa dabeetana add edit text daad ku qortaa yani waa is dhammaystiran halkan waxaa soo dartaa dhibic add bullet badan add bullet halkaas saad aragto add bullet marka wadaadkiisa add bullet marka ugu horeysa wataa kan dhex tegin anaga halka dhex joogan laan add bullet marka dhibicdu ku daraya hadda dhibic halkan koonahan uu kaga diri karo laakiin dhinacaas ka daray macni shape kanaan ogolay nooca laakiin halkaas ka daray tanna waa kuwana marka doonaysa dhinacan wareejiso waxaad tagaysaa right to left adiga kala wareeji waa kuwan marka kala wareejinaysa dhinacan kala wareejina right to left intaas waxaan ku soo gabagabeynay wixii ku jiray home hal mar aan kugu soo celiyo home oo muraajaca aad saad casharka u dhaxfay waxaan ku soo barnaa home waxa ku dhex jiray copy oo ah qaadashada oo control plus la taabanayay shay marka la doonayo la badiyo paste oo ah badinta shayga la qaatay cut oo ah jaridda undo oo ah ka noqoshada redo oo ah ku noqoshada iyo new slide marka doonayso slide cusub aad samaysato layout kana waxaad samaysan kartaa kuwa ku dhex jira noocana waxba badan markaas kuma dhaxayaan delete waxaad baabiin karaysaa slide kan laftigiisa baabiin karaysaa delete waka ku soo noqon leedahay waxa kale ku jiray p oo madoobina Paul oo madoobina chiefin underline u structure oo xariiq hoos marinaya s oo hard u sameynaysa iyo halkan ay ku jirtay inta labadan kala durkin lahayd labadan isku xigooga si isku xigaan adu kala durkin lahayd oo halkan inta doonto ka dhigi karto dabeed okay siinayso labadii saaw kala durkin waxa ku jiray numberka oo kulbaad weynin karayso marna yareyn karto waxa ku jiray farta labadan oo la shaqeeya size-ka font size-ka oo midna yareynayo midna ka weyno oo san weynin waxa ku jiray color waxa ku jiray inaad kuwan isleekaysiin karto uppercase waxa ku jiray yareyn karto lowercase waxa ku jiray inaad koobaad weyn karto ka dhigta license waxa ku jiray inaad ugu horeeyo yareyn karto toggle case inta marka waxa ku jiray left inuu qoraanku keeno align left iyo inuu bartanka keeno center iyo inuu keeno waxa ku jiray inaad dhibco sameyn karto waxa ku jiray inaad number u sameyn karto waxa ku jiray inaad ku rog inaad kan kala durkinto layma xayn suuq qoraalku isku waxa ku jirtay inaad dhinac geyn karto bottom iyo top iyo middle waxa isku jirtay inaad u sameyn karto shape waxa oo noocan ku soo baxay waxa ku jirtay inaad shape dhex samaysan karto oo ku dhex sameyn karto
waxaa ku jirta inaad shape ka midab u samayn karto, waxaa ku jirta inaad adu khad ku shumi karto, kaa laftigiisa aad khadka doonto aad ku shumi karto, waxaa ku jirta inaad kaa line ku dul samayn karto, waxaa ku jirta inaad kaa qaab u samayn karto, waxaa ku jiray intanaynu ka tagnay fine. waxaynu ku sharxnay buuggeeni hore word waa markaad rabto inaad qoro xaraf hesho xarafki baad helaysaa. hadda imika waxaan leeyahay a baan qoraya waa ka waxa lagu bedelayo replace ku bedel baa replace with waxa lagu bedelayo f baan ku bedelaya, markaasaan la replace f bay isku bedesho. waa intaas wax kala ma gebigiisu inta ku sharxay inta waa inaad halkan soo gasho aad shaygii find what waxa la helayo dabeed aad qorto click siiso kadib replace markaas uu ku sheegay replace with waxa lagu bedelay. halkaa waxay noogu dhamaaday casharkeen ku baranay home ee kamid ahaa PowerPoint. waxaan bilaabi doonaa insert.